بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومركله iyo barnaamijkeennii xog kororsi gaar ahaan qaybtiisa koobida iyo gorfeynta buugaagta maanta waxaan isleegi doonaa buugga la yiraahdo A Woman of Justice waan hoosaadkiisuna uu yahay A Woman Who Built a Hospital and Changed the World umulisadii dhistay dhakhtarka ee adduunka bedeshay buuggu waxa qortay Adna Aadan Ismaaciil oo ah dhakhtar caafimaad oo ku nool magaalada Hargeysa buugga waxa la soo saaray sanadkiina dhaafay 2019 wuxuu ku qoran yahay luqadda Ingiriiska waxa uu ka warramayaa sooyaalka Adna Aadan Ismaaciil oo ah gabadh aad loo yaqaano oo Soomaalida inteeda badan ay taqaano wuxuu ka kooban yahay 257 buug iyo 17 cutub oo ay ku jiraan hordhaca iyo qaybta u dambaysa iyaduna gabagabada si guud buu goyntaas ayuu ka kooban yahay adna waxay ka waramaysaa sooyaalkeedii ay soo martay intii markaa ay soo joogtay ilaa waqtiga hadda ay joogto ilaa intii cusbitaalka markaa ay dhisay si guud baynu markaa buugga uga warrami doonaa waxaynu u qaybin doonaa dhowr qaybood waxaynu ka warrami doonaa buugga bal si guud waxa uu ka warramayo iyo waxa uu sido aynu sheegi doonaa dadna waxaynu ku xigsiin doonaa waxa markaa akhristuhu ka faa'iideeyo ama marka uu dhameeyo qofku ka qaadan karo waxaan ugu soo gabagabeyn doonaa qaybta u dambaysa dhaliisha uu buuggu leeyahay iyo intii aan akhriyay shakhsiyan kasan dheer ahaan wixii dhaliil aan buugga markaa u hayo ee markaa gudbinayo haddaynu bilowno nuxurka buugga wuxuu ka warramayaa Adna Ismaaciil oo dhalatay sida ay xusayso sanadkii 1937 waxay ku dhalatay magaalada Hargeysa waliba gaar ahaan cusbitaalka magaalada Hargeysa ayay ku dhalatay aabaheed wuxuu ahaa oday caana oo dhakhtar caafimaad ah waxa la oran jiray Aadan Ismaaciil Aadan dhakhtar ayaa loo yaqaanay muddo fara badan buu ka shaqeeyay magaalooyinka Ceeri Gaabo Hargeysa iyo magaalooyinka la midka sidoo kale aabaheed wuxuu ahaa oday isaguna ganacsada oo Soomaaliland aad looga yaqaanay waqtiyada isticmaalka aadan gaadacada ayaa la oran jiray dalalka carabta ayuu dhoofin jiray waxyaabaha xoolaha nool iyo wixii la mida sida Adna xusayso Adna markay ay dhalatay aabaheed uu ku farxay markaasi uu sababto markaa ugu farxayna waxay ahayd iyadoo xaaskiisu ayna muddo fara badan ilmo u dhalay farxadii ku farxay wuxuu bixiyay magaca Shukri oo 7 cisho u horeysay waxa la oran jiray Adna magaceeda Shukri baa la oran jiray aabaheed oo ku farxay ayaan u bixiyay deedna markii 7 cisho ka soo wareegtay lashadeedii ayay hooyadeed u bixisay magaca Adna Adna waxay u bixisay hooyadeed saaxiibadeed la oran jiray Adna oo ay isjeclaayeen sida daraadeed markaa magaca Adna oo ilaa maanta la yiraahdo ugu bixisay Adna waxa ku soo barbaartay waqtigii markaa ay yarayd ay markaa mudooyinkii hore ay ku nool magaalada Hargeysa iyo Boorama markaa waxay xusaysaa ayeedeed iyo hooyadeed iyo habriirteed baa inay hayeen Kristaan oo diinta Masiixiyada ay haysteen Adna waqtiyada ay yarayd waxa ma baran jirin wixii ka horeeyay markaa da'da soke markii xogaa yar kortay ayaa wax dhacday maalmaha kamida ayuu arkay iyadoo buug haysata aabaheed deedna waxa uu ku yiri maxaad qabanaysaa waxay tiri buug ayaan akhriyaa been buu ka moodiyay markaa uu yeeray wuxuu ku yiri kaale buugga oo ku timiday buugga uu dhiibtay deedna inay buug akhriyo soo arkay markii uu ogaaday in gabadhii yareyd ay naqnayd wax akhriyayso iskuul aan la geeyay ayna waxna baranin ayuu si aqoonta iyo waxbarashada way jeceshahay deedna markaa waxa la raadiyay waxbarasho waqtigaasi gabdhaha ku nool Soomaaliya ama Somaliland ba waqtiyada isticmaalka wax badan markaa ma baran jirin inta barataana way yareyd deedna markaa waxa loo diray magaalada Djibouti habriirteedu waxa saydo caruur lahayd oo ku nool magaalada Djibouti ayaa loo geeyay deedna tii markaa la noolayd muddo kooban waxbarashadii ay ka dhiganaysay waxay xusaysaa markaa inay baratay luqadda Faransiiska iyo Ingiriiska waqtigii ay joogtay magaalada Djibouti iyo guud ahaan dalka Djibouti waxay tagtay 1946 waxa ka soo laabatay 52 magaalada Hargeysa ayay timiday magaalada Hargeysa waqti kooban ayay joogtay oo hal sano markaa gabadh Caaisha la dhahay Hargeysa kala shaqeynaysay waqtigaasi waxay
waqtigaa kadib waxay tagtay oo loo baahday macalin magaalada Burco gaar ahaana dugsi ku yaala markaa ayaa loo baahday macalin markaa adna oo ka timid Djibouti ayaa la qaatay adna waxay tagtay magaalada Burco ay 2 sano macalin ka ahayd waxay xusaysaa markii koowaad ee ahayd in shaqo ay qabato ay lacag ku qaadato waxoogaa shilmaata ayaan qaatay ayay tiri 2 sano ka shaqeynayay magaalada Burco wuxuu bariyay hablaha markaa ku nool magaalada Burco 2 sano markay dhameysatay 1954 ay wax u soo baxday waxbarasho dalka Ingiriiska oo scholarship ama deeq waxbarasho tii markaa adna tagtay waxay tagtay dalka Ingiriiska markay dalka Ingiriiska tagtay waxay qaadatay kulliyada kalkaalisadii bilowday sidii markaa aqoonta ku baranayso dalka Ingiriiska u joogtay waqtiga Ingiriiska ay ku noolay dhacdo oo kala duwan bay xusaysaa waxa kamid ah dhacdada koowaad ee xusayso iyadiyo isbarashadii ay isbarteen Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxay isku barteen oo ay sheegaysaa iyadu waxay jeclayd inay tagto habeenadii caweysyada ama waxyaabaha dansiga loo yaqaano ay tagi jirtay dalka Ingiriiska deedna habeenada kamid ah ay tagtay ciyaarihii inan baa markaa yimidaysta Soomaaliya inankii markii uu yimiday ayay is-aagaan deedna markay is-aagaan bay markaa isbarteeno magacaaga ii sheeg adna aadan baa la yidhaahdaa adna magacaaga ii sheeg Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal baa la yidhaahdaa deedna sidii markaa isku barteen iyadu waxay garatay markaa ay sheegaysaa Xaaji Ibraahim Cigaal ayaan gartay ayay tiri maadaama oday caan ahaayo dhulka Soomaalida iyo guud ahaan ka caana markii maxamed Jilaamin isbarteen toddobaad kadib ay markaa casho ayuu sameeyay si markaa isbarashadoodii u sii ballaarato oo isku bartaan xiriirkii koowaad markaa iyadii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal isbarashadoodu halkaas ayuu ka bilaabay dalka Ingiriiska waxoogaa kadib isagu soo laabtay oo abiyo xanuunsanayay ayuu yimiday dalka sidii wada markaa Ingiriiska isagu kaga yimiday adna waxbarashadii bay sii wadatay waqtigii markaa ay joogtay waxa kale xusaysaa inuu shaqeyn jirtay BBC-da muddada halka ay joogtay oo ay ka shaqeyn jirtay waxay sheegaysaa aabaheed oo aad u jeclaa inantiisa ayaa waqtiga dalka Ingiriiska ay joogtay marar kala duwan booqday oo isagoo dhiirigelinaya gabadhiisa dalka Ingiriiska wax ku baranaysa deedna markaa waxbarashadii markaa u soo dhamaatay adna way soo laabatay waxay timiday magaalada Hargeysa shaqadii markay jaamacadda qalin jabisay kadib shaqadeedii waxay ka bilowday magaalada Hargeysa deedna markaa halkaas ayay muddo kooban iyaduna ay joogtay adna waxay xusaysaa markaa xiriirkii ka dhaxeeyay iyadii aabaheed gaar ahaan jacaylkii ay u qabtay aad bay buuga ugu faahfaahinaysaa gaar ahaan geeridiisii waqtiga Ingiriiska ay ka timiday aabaheed wuxuu ka shaqeyn jiray magaalada Hargeysa iyo aaggan u dhow deedna waqtiga ayuu doonay 62kii dhamaadkiisii ayuu doonay inuu tago magaalada Muqdisho xogaa toddobaada inuu soo qaato magaalada Muqdisho ayuu tagay markuu magaalada Muqdisho tagay ayaa loo soo sheegay in aabaheed uu dhintay habeenkii loo soo sheegay saako kale ayuu aabaheed dhintay waqti maghrib oo kale ayaa loo soo sheegay iyadoo shaqo uga soo socota magaalada Berbera oo ay maalintaasi iyo maalmii ka horreeyay u joogtay deedna markii loo sheegay ninbaa ku yirmay aan dhakhtar baa tahay abaha uu dhintay deedna ma rumaysanine oo soo socoto waxay tiri walaal ninkan kuma garanay abaha wali uu nool yahay BBC adana ka maqashay iyadoo la leeyahay waxaan tacsiyo diranaa Allah u naxariistay qoyskii iyo qaraabadii aadan dhakhtar deedna markaa ma rumaysanin waxay sheegaysaa markaa ilaa waqtiga inaan rumaysanin geerida aabaheed markay timiday magaalada Hargeysa 3 habeenimo ayaa aragtay xaafadii oo lagu wareegsan yahay deedna waxay tiri markaas ayaa rumaystay inuu aabahay dhintay waxay xusaysaa murugo fara badan inay kala kulantay aabaheed dhimashadiisii Allah u naxariistay waqtigii wala laga hor aasay geeridiisina umay suurto galin inay ka qayb gasho ay aaskaasi ay ka qayb gashay tagto 3 cisho kadib magaalada Muqdisho u duurshay oo ay tagtay aaskiisana isla aroortiiba waa la aasay maalintii labaad waxaana ka qayb galay Allah u naxariistay madaxweynihii Soomaaliya waqtigaasi aadan cadde iyo saraakiishii dawladdiisa ku jirtay kala duwana aad baan markaa aaskaasi looga qayb qaatay Allah u naxariistay aadan dhakhtar adna waxaad ka dareemi karaysaa aabaheed sida uu jeclayd buuga aad bay ugu faahfaahinaysaa in badan ay kaga warantay 1962 bishii December ayuu markaa aabaheed inta la naxariisto adna markii Muqdisho tagtay ka soo laabatay waxa ku soo laabatay magaalada Hargeysa qaybta labaad aynu halka ka bilaabi doonaa buuga
وإنه قيمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. adoo suuqiyo sayla joogiyo adoo subaxii salaadaha hore sariirta hurdada siru jiifoon weli sara kicin saqda dhexe iyo duhur saafiya saacadoo idil sarif lacageedoo ku saacido oon ku siri haynsamow boodhari hayse seegina yaa salaam boodhari money exchange.